aad u mahadsan tahay booqashadaada maanta aad soo booqatay degmada Afgoye. Beeraha waxay u kala baxaan haddeertaan deegaankan labo beerado. Qaarna waa roob baa lagu tacbadaa, qaarna webi baa lagu tacbadaa. Labadaas beeraan haynaa oo lagu tacbado. Marka qaar roobkay sugayaan xilliga roobka uu da'o ama gu ama deer labadaas ay tacbanayaan. Qaarka oo webiga ay sugayaan webiga hadduu buuxo way waraabsanayaan, hadduu maqan yahayna ayaga markaas waxay sugayaan webiga. Labaas agabka loo isticmaalo waraabka beeraha beeraha markii loo fiirinayo waraabka way kala duwan yihiin. Annaga hadda waxaan isticmaalnaa hal nooc noocaas oo ah inaan waraabino, inaan kanaal u sameyno oo loo yaqaano faro system loo yaqaano. Kanaalkaas loo sameeyo webigii matoor in la saaro oo biyihii kanaalka lagu soo shubo, kadib kanaalkii beerta markuu yimaado beertii farar loo sameeyo, farahaas lagu waraabiyo hadda isticmaalnaa inta badan. Laakiin adduunka waa la horumaray oo waxaa la isticmaalaa dhowr waraab. Waxaa jira bahal spring water la yiraahdo oo irrigation la yiraahdo oo biyaha beerta kor ka waraabinaya jirto oo sameynayo. Qaar waxaa jira drip irrigation la yiraahdo oo tubooyin inta dhulka la dhigo lagu waraabinaya jirto. Laakiin annagu maana gaarin wali waa wadanka uu ku yaryahay kaas lama sameyn. Laakiin hadda inta badan waxaa lagu isticmaalo waxay tahay waa faro irrigation kaasi in farar loo sameeyo biyaha oo beerta lagu waraabiyo. Waxaa ka mid ah hadda Soomaali markii la joogo xilliyada gu'ga oo kale Soomaalida ma tacbato sisinta iyo masagada oo kale ma tacbato. Inkastoo beeraha qaar oo sida meelaha xagaaga aysan gaarin, Soomaali markii la joogo waxaa jira gobol ama deegaan waxaa jira xagaaga uusan ka diinaa jirto. Marka kuwaas way tacban karaan, caadi u tacbadaan. Laakiin hadda deegaan annaga aan joogno Afgoye oo kale waxaa lagu tacbaa inta badan masagada oo kale lama tacbo xilliga gu'ga, lama tacbo sisinta oo kale xilliga gu'ga lama tacbo. Iyadoo loo fiirinayo roobkaasi badan da'ayo sisinta uu ku dheelaa. Sisinta markii ay bislaato waxay rabtaa in la siibo, waxay rabtaa in la tubo, waxay rabtaa in shabis loo yaqaana in la shabiyo u baahan tahay. Marka haddii roob ugu da'ayo waxay u baahan tahay qorax inay hesho u baahan tahay. Haddii roob ugu da'ayo marka waxaa laga yaabaa sisintii maantana aad beeratay oo intaan soo tacbaysay xilliga oo tubka ay ku jirto in roob ugu da'o ay dhalato marka saameyn ku yeelan saadred lama beerto. Maadaama shukulaadkii wixii laga soo guuray dhulkii la qoday laga soo guuray, dadku waxay u bedeshay markiina ay ku shubaan fuustooyin caaga plastic kuwa oo jiingada ku samaysan jiirgaamadan oo 20 lah in lagu shubo lagu keedsado hadhow markii loo baahan in la gato. Dalaga la beero noocyadiisa waxay ku xiran tahay waxaad beeranayso ayay ku xiran tahay. Tusaale ahaan haddaad galey beeranayso, haddaad misig beeranayso, haddaad digir beeranayso, haddii aad khudaarta kale beeranayso waxay ku xiran tahay markaas ay ku xiran tahay. Sidaa daraadeed hadda galey beeranayso oo kale waxay raado qaabka loo beero amba labada geed inta loo dhaxaysiyo way kala fog tahay. Soo kale haddaad misig beeranayso way isku dhowdahay beeritaankeedii qaabka loo beeraa. Markii digir la beeraa oo kale 2 mitir kadib mid kale lagu beeraa space dheer la sameeyo maadaama dhulka ay saaqayso iyo qaraha oo kale ka mid tahay. Yaanyada oo kale waxaa loo sameeyaa isna qaabka loo beero gooniya, khudaarta gooniya loo beeraa sida geedaha. Marka waxay ku xiran tahay marka waxaad beeranayso ku xiran tahay iyo qaabka aad u beerayso iyo deegaankaasi waxaa lagu yaqaan qaabka loo beertay ka mid tahay.
iibgeynta waxay ku xiran tahay markasta magaala la geeyo horto tuulooyinkii iyo beerihii markii laga soo qaado ama ay soo bislaadaan waxaa la geeyaa magaalooyinka la geenayana iibgeynta laba u fiirnayna marna waa transportation ama qaabka loo qaado ama loo geeyo beeraha suuqa loo geeyo dadna waxay isticmaalaan gaari dameer inay ku qaadaan dad waxay isticmaalaan dhabarkooda inay ku qaataan waagii hore dhabar lagu qaadi jiray iyo dameeraha dushooda lagu qaadi jiray laakiin gaari dameer lagu qaadaa hadeertan waxaa lagu qaadaa baabuur iyo mootooyin lagu qaadaa beeraha markii la beeraha qalab badan la adeegsadaa annagu hadda adduunka waa horumaray oo wax badan la sameeyaa laakiin annaga waxaan isticmaalnaa yaambooyin dhulka markii la diyaarinayo waxaan ku diyaarinaa yaambooyin waxaan ku diyaarinaa makiin beerfal raado makiinda beerfalka marka waxay kamid tahay waxyaabaha na soo gaaray waqti dambe na soo gaaray waagii hore yaambooyinka gacmaha iyo wax lagu diyaarin jiray makiinda boos